waxaa ka war helay dhawaan in xubno ka tirsan baarlamaanka yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhaweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka Soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dawlad dhisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah Soomaaliya way dhaqaaqday hore ayay u socotaa dad aad u tiro yar oo carqalad wadaay ma celin karaan Soomaaliya mana haki karaan wayna soconaysaa ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay hay-adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliyeed ay ku sugayaan ha ku mashquulaan yaani ku mashquulin wada shara lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macna beelay maanta dib ay u noqoneen taariikhda ayaa qori doonta dadka waxa ka shaqeeya dadka maanta wadana waa la garanayaa taariikhda ay Soomaaliya ku dhaxleeyeen ee dhinaca siyaasadda yaani shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dawladda qaybaheeda kala duwan yaan lagu kadsoonin leenahay Soomaaliya guul iyo wanaag ayaan u rajaynaynaa way guuleysatay inta dhammaana way guuleysanaysaa